السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo Banaadir Star Media qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah gudoomiyaha hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari oo ku baaqay in si degdeg ah loo soo xiro madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kadib heshiiskii badda ee uu la galay Itoobiya dawladda Mareykanka oo mar kale si cad u garab istaagtay Soomaaliya si weyn u cambaaraysay faragelinta Itoobiya ku hayso qayb kamid ah biyaha Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheikh oo shaaca ka qaaday in Soomaaliya ay leedahay laba cadow oo kala ah al-shabaab iyo Itoobiya iyo filla Soomaaliya oo diyaarisay qorshe cajiib oo lagu soo xiragelinayo madaxweynaha dib loo doortay ee Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo khilaaf baan uu kala dhaxeeyo dawladda federaalka ee Soomaaliya qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Banaadir Star Media oo diyaar garoobay ugu dhameystiran isoo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka warbaahinta xidigta Banaadir oo dhameystiran fadlan daawada markasta xusuusna u xuska iyo xiriirka leh oo tuka salaada si ay ku soo gaaraan wararka iyo warbixinaha degdega ee Banaadir Star Media fadlan rukumo channelkan oo subscribe saaro lana wadaaga asxaabtaada mahadsanid gudoomiyaha hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa soo jeediyay in la xiro madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee dhawaan qayb kamid ah biyaha Soomaaliya ka iibsaday Itoobiya gudoomiyaha hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa markii ugu horeysay si adag uga hadlay heshiiskii badda ee Soomaaliland ay la gashay dawladda federaalka ee Itoobiya Jawaari ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo saxiixay heshiiskaasi wuxuuna tilmaamay in uu ku kacay qiyaano qaran oo weyn loona baahan yahay in talaabo degdeg ah laga qaado Biixi gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo qaaday waxa uu arintan ka qabo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuuna sheegay in qiyaanada xukunkeeda uu yahay dil xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu qorayaa qof allaala qofkii gobonimada Soomaaliyeed qayb kamid ah ama kulligeeda hoosgeeya dawlad kale oo ajnabi ah wuxuu ku kacay qiyaano qaran xukunkeeduna waa dil ayuu yiri Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu kaloo tilmaamay in kiiskan uu ku cad yahay madaxweyne Biixi isaguna uu qiraal ka yahay maadaama uu shaaciyay heshiiska badda ee uu la galay Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya ee Soomaaliya cadawga ku ah heshiiska ninka saxiixay uu sheegay inuu yahay Muuse Biixi oo u bareeray in qayb kamid ah biyaha Soomaaliya uu ka iibiyo Itoobiya iyadoo aanay xogtu qarsoonayn sida darteedna loo baahan yahay in Muuse Biixi gacanta lagu soo dhigo oo maxkamad la soo taago sidoo kale wuxuu ku taliyay in Muuse Biixi lala aado dhanka sharciga isla markaasna loo jaro waaran soo qabasho ah kadibna sidaas lagu maxkamadeeyo Jawaari ayaa sheegay in tan ay tahay mas'uuliyad saaran dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan maxkamadda sare oo loo baahan yahay in si degdeg ah ay waaran soo qabasho ugu jirto Muuse Biixi si gacanta loogu soo dhigo ugu dambeyn wuxuu fariin u diray shacabka Soomaaliyeed oo ugu baaqay inay ka hor yimaadaan damaca Itoobiya iyo talaabada culus ee uu qaaday madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu ku iibiyay qayb kamid ah badda Soomaaliya wuxuu sheegay inuu ku kalsoon yahay shacbiga reer Soomaaliland ee dareenkoodu nool yahay kuwaas oo qaarkood iska diiday damaca Itoobiya isla markaana ku tilmaamay waxaan suurtagal ahayn in badooda laga iibiyo qayb kamid ah dalka Itoobiya waxa si gaar ah arintan uga gadooday shacabka ku nool magaalooyinka Saylac Luqaya iyo Boorama kuwaas oo sheegay inay ka dagaalami doonaan in qayb kamid ah badooda ay Itoobiya la wareegto hadalka gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee Soomaaliya Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa ku su'aadaya iyada oo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya heshiiskaasi adag uga hortimid sidoo kalena ay dawladda Soomaaliya sheegtay intan ay tahay bilowga dagaal cusub oo ka dhex qarxi doona labada dal ee dariska ee Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama Itoobiya ku soo xadgudubtay gobonimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya filla Soomaaliya ayaa diyaarisay qorshe cajiib ah oo lagu soo xirigelinayo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ee dhawaan mar kale dib loo doortay iyadoo uu Saciid Dani kaga adkaaday filla Soomaaliya loolankii doorashada Puntland ee Garowe ka dhacay 8 bishan oo uu ka guuleystay dhammaan xubnihii mucaaradka ahaa taasi oo u suurtagelisay Saciid Dani in mar kale uu madaxweyne ka noqdo maamulka Puntland oo uu hogaamiyo 5 sano ee soo socotay ilaa 2029 filla Soomaaliya oo si weyn uga naxday guusha iyo dib u doorashada Saciid Dani ayaa hadda ka baaraandegaysa qorshe lagu soo xirogeliyo madaxweynaha maamulka Puntland maadaama hadda Xasan Sheikh iyo Dani uu muddo xileed dheer yahay Saciid Dani oo haysta waqti ku filan oo uu kula dagaalamo Xasan Sheikh waxa Dani marka koowaad hambalyo u diray madaxweyne Xasan Sheikh iyo ra'iisul wasaare Xamse oo ay xusid mudan tahay inaysan ku faraxsanayn dib u doorashadiisa dhanka kale madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa ay intooda badan u hambalyeeyeen Saciid Cabdilaahi Dani oo ay dib u doorashadiisa ugu hambalyeeyeen Dani ayaa laga cabsi qabaa inuu farqaha ku dhago dawladda federaalka ee Soomaaliya uu rido xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse madaxweynaha iyo waliba xubnaha sare ee dawladda
si aanay taa u dhicin filla Soomaaliya waxay ka baaraandegaysaa laba qorshe oo la doonayo in Siciid Dani lagu soo xirogeliyo si uu heshiis rasmi ah ula galo dowladda federaalka ee Soomaaliya loona xiro dagaal siyaasadeedka Garowe iyo Muqdisho. qodobka koowaad ayaa ah in xilka laga qaado ra'iisul wasaare Xamse oo Dani uu keensado ra'iisul wasaaraha cusub oo ka shaqeynaya danaha Puntland oo kaliya taasi oo ay adag tahay inay si sahlan ku hirgasho. kan labaadna waa in Siciid Dani uu saxiixo ama uu ogolaado wax ka bedelka dastuurka isla markaana loo fasaxo mashaariicda iyo lacagaha faraha badan ee ka xayiran ee ay hor istaagtay dowladda federaalka ee Soomaaliya intii uu jiray khilaafka filla Soomaaliya iyo Siciid Dani. qodobka koowaad ee xilka qaadista ra'iisul wasaare Xamse ayaa ah mid uu galaangalkiisa iyo damciisa kol hore muujiyay Siciid Cabdilaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland oo si cad ugu sheegay qaar ka mid ah beelaha Puntland in uu la baadigoobi doono kursiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo xilka laga qaadi doono Xamse taa bedelkeedana kursiga ra'iisul wasaaraha la siin doono shaqsi deegaan ahaan ka soo jeeda Garowe. hase yeeshee lama oga sida uu Xasan Sheikh ugu degdegi doono xilka qaadista iyo xafiiska eriyada Xamse Cabdi Barre oo ay isku xisbi yihiin isla markaana muddo dheer ay siyaasadda ay ku ahaayeen saaxiibo. hase yeeshee danaha siyaasiga ah ee iminka taagan ayaa laga yaabaa inay horseedaan in uu Xamse xafiiska baneeyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya uu ka yimaado dhanka deegaanada maamulka Puntland. Dani ayaan la ogeyn sida uu ku aqbali doono qalinka inuu ku duugo wax ka bedelka dastuurka si loogu fasaxo dhankiisa mashaariicda kaga xiran Muqdisho loona siiyo shaqsi deegaan ahaan ka soo jeeda Puntland kursiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. xiisada Puntland iyo dowladda federaalka oo muddo soo jiitamaysa ayaa gaadhay heerkii ugu sarreeyay waxaana hadda la eegayaa sida ay labada dhinac u xaliyaan xiisadan iyo sida Dani looga dhaadhicin karo fulinta qorshayaasha ay wadato filla Soomaaliya. dowladda Mareykanka ayaa mar kale adkaysay in si aan leexleexasho lahayn ay u taageerayso madax banaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya. sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa si cad u sheegtay inay soo dhaweynayso shirka madaxda urur goboleedka IGAD ee 18 bishan lagu dhawaaqay inuu ka dhacayo dalka Uganda. madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo ah gudoomiyaha urur goboleedka IGAD ayaa iclaamiyay shir degdeg ah oo looga hadlayo damaca guracan ee Itoobiya ay ku doonayso inay ku boobto qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya iyo jawaabta ay bixisay Soomaaliya. shirkaasi waxaa 18 bishan lagu qabanayaa dalka Uganda wuxuuna daba socdaa baaqi Soomaaliya ay u dirtay wadamada ku midoobay urur goboleedka IGAD oo Itoobiya xitaa ay ku jidho. Soomaaliya ayaa horey u codsatay in IGAD ay isugu timaado shir degdeg ah si looga hadlo xadgudubka Itoobiya ee ka soo horjeeda shuruucda caalamiga ah. Mareykanka oo horey u cadeeyay mowqifkiisa ayaa haddana taageeray qabsoomidda shirkan ay yeelanayaan madaxda dalalka urur goboleedka IGAD kaasi oo Soomaaliya ay codsatay in madaxda IGAD ay isugu yimaadaan shirkan degdega ee hadda ka dhacaya Kampala. hadalka Mareykanku wuxuu ku soo aadayaa iyada oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud uu ku hanjabay in haddii Itoobiya ay dhanka dagaalka u qaado hal talaabo ay Soomaaliduna qaadi doonto 4 talaabo waana hadalkii ugu adkaa ee dadka Soomaaliyeed ay ka maqlaan Xasan Sheikh Maxamuud oo ka hadlay xiisadan. madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ku booriyay shacabkiisa in ay isu diyaariyaan cadawgooda iskana difaacaan oo ay dalkooda xoreystaan isagoo caalamka marqaati uga dhigay damaca guracan ee Itoobiya ay ku doonayso badda Soomaaliya. Xasan Sheikh Maxamuud wuxuu sheegay in Soomaaliya ay xilligan la jooga leedahay laba cadow oo kala ah Al-Shabaab iyo Itoobiya wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in labadaasi cadow si isku mid ah loola dagaalamo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya wuxuu sheegay in dadka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah kuna caan baxay wadaninimada iyo difaacashada dhulkooda hodanka ah uu ka filayo inay iska dhicin doonaan Itoobiya oo duulaan ku ah badda Soomaaliya. xadgudubka Itoobiya ayuu sheegay Xasan Sheikh inuu yahay mid aan geed loogu soo gamban oo loo baahan yahay inay is hortaagaan shacabka Soomaaliyeed ee gobonnimo doonayaasha ah ee weligoodba difaacan jiray dhulkooda. garab istaag xoogan ayay Soomaaliya ka heshay dalalka caalamka tan iyo markii ay Itoobiya heshiiska badda la gashay maamulka Somaliland ee uu hogaamiyo Muuse Biixi waxaana Soomaaliya garab istaagay dalalka Mareykanka, Turkiga, Masar, Qatar, wadamada ku bahoobay midowga Yurub, qaar ka mid ah dalalka Afrika oo Eritrea ay ku jirto iyo sidoo kale wadamada Carbeed intooda badan. waxaana muuqata in Soomaaliya ay dhanka siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda si weyn ugala dagaalantay Itoobiya waxaana la eegayaa go'aanka ugu dambeeya ee shirka urur goboleedka IGAD ee ka dhacaya Uganda ka soo bixi doona. waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay aad ka daawanayseen Banaadir Star Media.